Dallada isku xidhka haweenka ee Nagaad ayaa xisbiga mucaaradka u cid ku bogaadisay 10 musharax oo haween oo ka sharaxan xisbigaasi isla markaana ugu baaqday haweenweynaha Somaliland inay codkooda siiyaan haweenka musharaxiinta ee u tartamaya doorashooyinka soo socda. Munaasabad lagu shaacinayay 10kaasi hablood ee musharaxiinta oo lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga u cid gudoomiye ku-xigeenka Dallada Nagaad mas'uuliyiin ka socday xisbiyada u cid iyo Dallada Nagaad. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka Dallada Nagaad Marwe Khatra Cumar Xasan. waxaa sharaf weyn ii ah inaan halkan caawa ku maamuusno annagoo ah Dallada haweenka isku xidhka Somaliland ee Nagaad inaan halkan caawa ku maamuusno hablihii musharaxiinta ka ahaa xisbiga qaranka ee u cid labada golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka oo loogu sameeyay halkan casho sharafeed. runtii waxaan oran karaa waxa weeyaan munaasabad qiimaheeda iyo qaayaheedaba xambaarsan. u cidna maanta maadaama noogu soo wada horeeyay oo maanta xafladii u horeysay aan ku maamuusnay halka waxa ka yar muuqata inay naga xigo xisbiyada kale. wuxuu nagaga xigaa sidoo noo ixtiraamay runtii haddaan u tagno aan baan wax kala hadalno marka waxay daaran tahay kolley inaynu caawa ku maamuusno hablaha ka kala yimid daafaha maxay haytay Somaliland iyo gobolada Somaliland ee kala durugsan aanu halkan uga mahadiyo hambaliyo iyo bogaadina uga dirno xisbiga qaranka ee u cid hablahana aan ugu ducayno marka u cidna waxaanu leenahay hablaha ha soo sharaxine soo saara kelmadana farana u cid waxa weeyaan hablaha musharaxiin baanu ka dhignay kaleedin kama rabnee sida aad u soo sharaxdaan inaad u soo saartaan oo anaguna idinla soo saarnaa oo idinkana si gaar ah idinka codsanayna idinla faraynaa xisbiyadana waxaan leeyahay bal sidaa maanta xisbiga ugu hablaha badan leh ayuun baa hadhow tahanan doona haweenka codkooda. sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah haweenka ka sharaxan xisbiga mucaaradka u cid iyaga munaasabadaasi loo qabtay. xafladan anaga sharaf iyo wanaag bay anaga noo tahay maanta heerkaanu taagannahay waa heer in badan laga soo shaqeeyey waxaan aad si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali Xuseen oo 10kii musharaxee labeenta Somaliland ka soo sharaxay xisbiga u cid waxaanu dileynay haweenka iyo dhalinyarada codeeya in codkiina na siisaan oo noogu deeqdaan sidii noogu dhaweydo riyooyinkan in badan ku riyoonaynay haweenkuna ku soo baxan jamhuuriyadda Somaliland waxaan rajaynayaa insha Allah bismillaahi kariim aad si gaar ah waxaan aad ugu mahadnaqayaa Dallada Nagaad oo habeen naga seexan oo heegan noo ahayd oo cuqaasheeda xitaa noo soo kaxaysay waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin ragow intiini waanu soo gudnay in badan baanu idin cararnay waa markayagii waxaan leenahay waa inaad codka ugu badan noogu hiilsaan dumarkana waxaan leeyahay annaga idinka ayaanu dantiinni wadnaa waayo waxa weeyaan maanta haddaanu anagu dhacno oon soo bixi weyno wax dambo dumar hadal hayn doonaa ma jiro waxaan doonaynaa inaanu derbigaa jabinno waxaan doonaynaa da'yarta mutacalimiinta jaamiciinta inaanu waddo u jeexno idinka idiin dan tahay dawadiinni baanu nahay. marka insha Allah waxaan rajaynayaa bulshada ku nool gobolka Sool inay dooran doonaan khaasatan waxaan fariin u dirayaa haweenweynaha gobolka Sool waxaan rabaa inaad i doorataan insha Allah anigoo idin ballan qaadi doono inaan gaarsiiyo codkiina meel walba inagu aan istooranno codkeena wax ku dooranno xisbiga u cid waxaan leeyahay waan horta hambaliyeynaya injineerkan waxaan leeyahay Allah ku barakeeyo waa nin saliima waa nin daacada waa nin qalbi wanaagsan waxa weeyaan dee dumarka iyo dhalinyarada ayaa lagu jiifsan jiro labadiiba xisbigiisu ka sharax dalladeeda sharaftalena waxaan leeyahay in Nagaad runtii wax badan baa dumarka la qabateen waxa ugu muhiimsan dee lacagtii faraha badneyd ee laga rabay ayaaba dhulka ku dhufateen oo tidhaaheen hablaheeda lacag lama weydiin karo yaa idinka sharaf badan oo idinka qowd badan oo idinka wanaagsan Allah ha idin barakeeyo halkaa ha nagaga hadhina weli hawshii way taagan tahay halkii ugu dambaysay maraysaa. Nagaad Dallada haweenka Nagaad oo aan naga nasan har iyo habeenba oo hawsha nala soo dhiraandhirinayay nala soo waday iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin
insha allah waynu guulaysan doonaa anigoo u mahadnaqaya hadda ugu badan ilaah baa leh laakiin u mahadnaqaya gudoomiyaha xisbiga ucid iyo dhammaan maxay tahay gudoomiyaashii dadka ka shaqeeya oo runtii noo halgamay waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa nagaad oo runtii ahayd ururkayagii aanu ilaa muddada dheer kaga soo halgamaynay in maruun dumarku siyaasadda yimaadaan waxaan ku faraxsanahay maanta inaanu soo taaganahay stagekii xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka ucid hibaaq cali oo iyaduna madasha ka hadasha ayaa waxay sheegtay xisbi haddaan nahay ucid de anigu waa ka soo baxnay shaqadeeniyo musharaxiintii waa kuwan maanta shaqadu waxay u taalaa ummadda heer Soomaaliland ama haweenka Soomaaliland musharaxiintii aniga sugteen waa kuwan codkiina maanta loo baahan yahay gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid Siciid Cumar Axmed Siciid Ucid oo isagu madashaasi soo gabagabeeyay ayaa waxa uu sheegay dalladda nagaad iyo howlwadeenadeeda halkan waxaan uga sidaa fariin gaara oo soo faray gudoomiyuhu iyo mahadnaq uu idin mahadnaqayo xafladan casho sharafta ee aad ku maamusteen xildhibaanada dumarka ah ee ka soo insha Allah ka soo bixi doona xisbiga cadaaladda iyo daryeelka haddii maxay ahayd ilaahay idmo waxaan rajaynayaa dumarku inay sacaawiyaan qaybta ugu badan ee population-keena waa dumarku waa inay sacaawiyaan waxa kaloo iyadana aanu maxay ahayd isla garanay xisbiyada haddaan nahay in dadka laga tira badan yahay ee maxay ahayd gabooyaha in laga soo sharaxo xisbi kastaaba 3 qof laakiin anagu waxoogay waan ku yara darayo 4 qof baanu ka soo sharaxnay waxaa loo baahan yahay qayb kasta oo bulshadeena kamida ama ha yaraato ama ha badnaato inay iska dhex aragto meesha lagu kala qaybsanayo keega ama haddaan si kale u idhaaho halka xukunka iyo maamulka laga maxay haytay laga jaan qaadayo ama lagu go'aaminayo in cid kastaaba ay timaado taana iyadana aad iyo aad baan ugu talagalnay